عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا برنامجكي أو قفك كجعل ولاشين ومحل هذا وقرقارسا ولا لها واحد جعل لبناها جعلك أردن وهاكن أفرد ذا ويل جبر بقفك جعل إنه قصو قيب قلا وقصو قيب قلا قفل بأفرين هي برنامج كان وبرنامج لو طلق علي wiilka gabadha jecelka u sheegan kar loo ka xishoonay mise gabadha wiilka jecelka u sheegan la ka xishoonaysa mise wiilka gabadhiisu ka tagtay isqabeen oo kale sida uu la soo hadlo aan maxaa dhahaa linka oo na soo gasho wali intuu jecel yahay u sheegto jecelkiisa iyo gabadhaasna madartay halka jecelka soo hor bilowday ilaa qofkii ku qabay oo maxaa dhahaa kugu soo wax ku dhaama jirto nolosheeda hor ula sii wadatid kollayba maxaa dhahaa wiilka gabadh isqabashadaan baas ku keena iyo gabadha maaragtay rabta reerkeega inay ku noqoto oo na ka maarmeen gabadhaas oo kale gabadha xishoonin wax kasta waan adduunkan waa isbedelay 2020 joog wax laga xishoonay meesha ma yaalago oo walaashin way garabkeena saaran soo dhabanaha jacaylka ugu qofka ku jecel way barnaamijkan ku soo dhawaada wiilban hadda wacaya waqtkan soo gelinaya markaas wiilkan baa noo wacay maanta dhan maxaa la isugayay isagana waan ka hadlina dad kalena way jirtaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhawo walaalkay wa calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhawo magacaaga u sheeg bulshada ku daawanaysa magacaaga u sheeg halka joogtid u sheeg ma sha Allah gacan furan oo qalbi furan ku soo dhawo waa happy channel 1 oo walaashina jacaylka dibanaha ama meesha u fadhida mandhawaay walaal wandhawaay happy channel wandhawaay magacaygu waa magacaagu khadka keer xun karaa la noqda maqlay walaalo magacaaga soo tabi halo waa lagu maqlay magacaaga soo tabi magacaygu Ahmed bidada Ahmed haye intee ku nool Ahmed waxaan ku noolahay mudug ma sha Allah soo dhawo ay maqlay Ahmedow mandhawaay soo dhawo mandhawaay channelkana waa ku dhawahay waana soo dhaweynayaa barnaamijkan aad ku fiican oo kulay aad hadda adigu aad daadiinaysid ma sha Allah waana barnaamij loo baahnaa bulshadana waxay soo dhaweynaysaa ما شاء الله أدي أد ورالك وما سنتهي مكان محلها ولا شيء وحيين كسر سرك عادي قفك ما دركتي دبنها تعيل كوردن محلها إنه قفل بروح وجعلي هلا وجيسيو مركات هيدا كوا أو قفك كجعل وايه قفك واحد جعل ودم بإنه يسوي تبي ولا شيء وايه إنما قفل بما دركتي كسر كركارتو ما شاء الله ولا شيء توماس تنتهي أوكي سوقل هذا محلها أنا هذا عن تكرر بقزوين عائلة هذه أنا هذا عن كورة بقزوين عائلة أنا قبضي صح واحد أنا مركز أرى خير له صح واحد علي أنا مالك الشقية بقى جبر حبين سبرني جوادي سبرني حبينكي لما هذا كلو قرني وأصله هذا الني أنتي مدة أو هذه جوادي صح gabadha arrimaha hoose iyo inaan macnaha in xaas lahay inaan kala saahay iyo sawareysan صح wax badan baa gabadha soconay waanu kala fogeyn xoogaa oo de meel iga fog bay joogtaa iyadoo aan meel kale joogay isku meel baan joogin hasa ahaatee social media aan ka xiriirinay ama telefonka intii muddo amarka hadin gabadhii dhexdeena waxa ka dhashay واحد عجل جعاله ما كان شيء صح جعاله دحين كذا شيء مدة adiga 2 sano iyo xogaa markaan sheekaysanayni gabadheena asaa isku jeclaano de waqti kasto dad isku baahan oo hadlayo ana ka maarmay waqti kasta aan la hadlamaanay isiga maarmay baa isku noqonay way ay imaan jirtay oo anigu markaas meel baan ka shaqeynay oo qofkaan isla ma ahayn meel wax ka baranaysay bi joogtay dadkoodii la joogtay jacayl
hayadatiis bay aniga ii soo raadin jirtay oo intaasna jacaylkooda qofka u jacayl haya wax kasta meel kasta uu u marayaa inay halkaas kusoo kulannay kabacdi waxaa dhacday adigu muddo 3 sano ku dhow markii aan sheekaysanay marna ana weli alla kana ida goobteedii macnaha deganeed ana ugu tegin waxaa dhacday inaan mar aniga safray meeshii degana u safray meeshii markaan u safray gabadhii waan ku wada kulannay barnaamijyadan u safray waxaa ka mid ahaa inaan meel degan goob macnaha aan ayadoo joogto aan aniga joogin inaan arrinta ugu sheego inaan ahay nin reer leh macnaha reer ay ka horeeya xaasil aan ahay may maqashaan naciim waan ku maqlay adaan ku dhagaysanayaa bow inaan barnaamijka gabadhaas u sheego oo ka dhaadhiciyo aan u tegey waxaan kala kulmi doonaa markaas kale niyadda kumaan haysan laakiin qulubtida ay isku bedelaysa aan sila qof jecel oo isjeceshiin marka horena waxba u sheegin si wax ugu sheegi kartaa waxyaala badan baas qalbigayga ka dhex buuxaya markaas waad ogaan kartaa qof wax ka qarisay markaa u sheegin kabacdi rajada qofka aad jeceshahay kana baqaysa qofkii inaa isweydaan arrimaha markaa u sheeg anoo qulubteeda isku bedelayso gabadhii markaa meesha ku wada kulnay asku meesha ugu tagaan goobteeda ku booqday ayada marti markaas u noqday aan wada sheekaysanay habeenkii u horreysay aan wada kulannay maalintii labaad ilaahay amarkiis meel cafeteria aan joognay waxay dhacday waxaa soo galay wiil dhalinyaro ah marka wuxuu wataa ilmihiisii iyo xaaskiisii way fiirisay marka waxay tiri walaal axmed oo bay tiri xabiibi goormaan arkaya adoo ilmahaaga saan iyo aniga iisoo kaxayn doono oo goob cashaana keeni doono odadan na wado anigii waan qoslay nin wax og bala badana waxaa isiri gabadha mareerka hore ka faalloonaysaa waxaan soo qoslay habeenkii dib marka kasoo kacayba waxaa ii soo baxday inaanan gabadha saa u faraxsan oo farxadda haysato oo saa u qoslayso haddaan arrimahan u sheego in ay qalbiga ka jibinayo marka waxaan aniga ii muuqatay qofka farxadda haysta oo farxadda ku nool inaanan qalbiga ka jibinin baa isoo baxday waan ka aamusay uma sheegin waan ka socday meesha aan olu sheegin laakiin waqti fiican ku la soo qaatay iyadoo faraxsan oo lacagta ka soo kacay goobteedii markaan kusoo noqday yar saaxiib baan ahay oo isku meel ka shaqeyn inaan joogno baa arrinta la socday markaa dadka gabadha isbarayna ogaayay inta la socday arrintii axmed oo gabadhi waa la u sheegtay saasaa dhacday gabadhii markaa arrinta u sheegi lahaa gabadhii farxad dheeri haysatay maxaa isira waaro qofka kuu faraxsan oo qalbiga farxadda kuu hayo haddii aa maanta qalbiga ibisid oo maanta aynan qalbiga ibisid wadadii maradina bal waxaa isira xal kala doon oo la tasho bas wuxuu dhahay waxaa samaysaa hal arrin baa kugu biirinayaa buu yidhi oo tala ahaantayda aniga ah وده يو حسمينا مسج واستعمال وأديكسو text message وقر gabadhaas marka siinaysan ay ku shoobi doonto ilaahay warbadis text message oo qoray waan u diray isoo wacday iyadoo qoslaysa isoo wacday aniga waan farxay sidee markaan مثلا waxaas lahaa kuma soo wici doonto telefonkeeda san doontaa ama kaama qaban doonto hadaa wacay telefonkeeda ama kugu soo jawaabaysaa saxa laakiin walaal ma caanay anigu ku jeclay haddana meel aan ka soo laabtay joogo
ayo aniga adigu baa ku dhaxmay ee kale oo ii muuqda male marka waxay tiri wax kastoo aad tahay aniga kuu rabo kuu jeclahay shalayna su-aali maantana haddaa leedahay maasha allah caalin bay walaale aniga adiga soo martay haddana gabadha maan aad u jeclay ka mid halo okay imika gabadhii hakeed ku kala maqantiin gabadhii way joogtaa waan wada hadlnaa hadda laakiin hadda waan kala fognahay dhinaca koonfurtay ku sugan tahay anidee waan ku sugantahay okay gabadhii magaceega maad sheegi siduu maadarag lagugu shargareeyo oo asxaabtan oo youtube-ka way kuu jeedaan qof walba oo soo hadla oo loo shargareeyo magaceega maad sheegi inaad weli jeceshahay gabadhaas ood ka maarmi karayn maad usoo sheegay magaceega yaa walaal igu soceli gabadha magaceega maad sheegi inaa lagu shargareeyo gabadhaas u ogaato inaad jeceshay ilaa hadda walaal si wanaagsan gabadhaas raxmaa la yidhaahdaa raxmo haa sax raxmaa la yidhaahdaa hay ilaa iyo hadda waa jeclahay insha allah inaan guur halkaas doonaa insha allah ilaahay si khayr qabaa sukeenkeena adiga iyo raxmo wallaahi jecel caadiya ma aha maxaa la dhahdaa maadaama idna ku jeceshahay ilaahay waxaan ka baryaynaa si khayr qaba ilaahay sukeenkeeno asxaabta youtube-kuna ay kuu jeedaan usoo duceeya wiilkaasi raxmo ilaahay ha inoogu soo dhaweeyo maxaa dhaha jacaylkaas inay wada midoobaan sax insha allah ducada xaggeena asxaabta maxaad ka codsanaysaa asxaabta waan ka codsanayaa ducada ilaah baa ducada bixiye laakiin inay duceeyaan oo dee inaan is helno iyo jacaylkaygaas waa ka asxaaba youtube waad u jeediin oo walaalkiin waaye oo mudug jooga maxaa dhahdaay ugu soo duceeya gabadhaas raxmaa la dhahaa u sheergareeya xaafadii joogtaa raxma gaalkacayo xaafadda gaalgacaya ku nooshahay aa loo sheergareey sidaa loo wada raxmo gurigooga ha loogu dhex tuuro youtube-ka saa loo wado dhac ku saactisiiya waad u jeedaa oo walaalkiin waaye ha kala bakhaylna u sheergareeya meel kasta ku sheergareeya hay walaalkii aad iyo aad baad u maasantahay si fiican ba barnaamijka nooga qayb qaadatay raxmana insha allah ilaahay labadii isku nastay allah idinka wada dhigo allah kuu soo dhaweeyo anaa kaasan kaaga soo duceeyo walaasha happy channel waaye intiin happy channel aad u mahadsantihiin sida wanaagsan hadda igala socodsiin waa kaa waad maasantahay walaalkii bay bay marka oo walaalkiin waaye u shargareeya qof walba maad aragta halkaa kasoo hadla inaa u shargaraysiin isku daya oo maxaa la dhahdaaye qof kastoo dhibana ah u shargareeya ilaahay dartii ugu shargareeya waa walaashin waaye halna kala bakhaylina sisibkaraabkana usoo saara like share commentiga soo sameeya sisibkaraab hoostoo dhac kasoo siiya qof walba barnaamijka maxaa dhahda ugu qofka aad jeceshahay waaye waa dhibanaha jacaylka oo dhan kusoo dhawaada cid loo kala hadhaysa ma lahan waxaa idinka soo tubinayaa wiil oo la yidhaahdo wuxuu yiri ii tabi biigu dhahay wiil dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Hargeysa sidoo igaran malene wuxuu dhahay gabadh waxaan rabaa ubad haysato yurka joogto ubad haysato oo raba inaan xaada ubadkaasi iyo aniga inaan isla midoono oo la hayn karo waa ka message-kiisa inaan gudbiyo oo dhibanaha jacaylka gabadh saasaan rabaa inaan jeclaaday buuri gacmina ay soo heshiin codkiisa idin fura assalaamu calaykum korona salaamay dhammaantiin halkaad iga maqlaysaan codkayga magacaygu waa Shaafici Axmed naanistiidu waa Shaafi waxaana joogaa Somaliland gaar ahaan magaalada Burco waxaan doonayaa in garanaysaa hooyooyinka dhibaataysan garanaysaa carruur inta badan laga qaado ee qurbaha ama Canada ama Australia ama Europe joogta annagu waxaan nahay dhalinyaro ma garanaysaa haddii aqoon wax baratay oo waddankoodii garanaysaa haddii joogto nabad ku haysta waxaan doonayaa halkan codkayga soo gudbinayaa garanaysaa haddii ra'yiga ka dhiibanayaa doonayaa gabadh daadeedu ilaa 30 wixii ka hooseeya ah
oo garooba ama carruur lahaato ama 2 ama 3 kaa hooyaa oo baahan wax cid koraysa anuguna gacan ku siino ayaan u baahanahay ka codkiga haddii maqlayso hooyadaas dadeedu aniga waxa weeyaan 30 jir aqoon wax bartay fahmayna dhibaatooyinka uu leeyahay guurka iyo wanaaggiisa iyo farxadda waxyaalo badanna waan daaqadeynay waslaagnay anagoo guruuba kaa waxaan doonayaa codkigaas nadiistii gudbisid meel kastay joogto lambarkaygana kusoo hoos qoro oo halkaa igala soo xidhiidho damana aan halkaa ka wada sheegno kaa waxaan leeyahay welcome baan leeyahay waka walaalkiin waaye wuxuu dhahay gabar garoobaan rabaa waa ka weynii sheegay hadalka waa dhameeyey burco jooga Hargeysa gaar ahaan burco ka jooga lambarkan soo tabinaya waa 0 6 5 9 9 8 6 3 9 9 9 waan ku soo celinaya lambarkiisa 0 6 5 9 9 8 6 3 9 9 9 إن شاء الله gabadhii rabto maxaa dhaha ubadkina laga gaaro waa kaas wiilkaas diyaar u ah Hargeysa jooga gaar ahaan burco jooga ku soo dhawaada